kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka muuqaalka dunida ee Warweyn TV. barnaamijka waxaan ku falanqeyn doonaa wararkii ugu waaweynaa iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay xiisadda bariga dhexe. Israa'iil oo duqeysay goobo muhiim ah oo kamid ah goobaha tamarta ee Iran. Sidoo kale Iraaniyiintu iyaguna jawaabo culus ka bixiyay gantaalo ku garaacay magaalooyin dhowr oo ku yaala Israa'iil. Faahfaahinadii ugu dambeeyay dagaalyahanada oo iyaguna tallaabooyin cajiib ah sameeyay. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga oo isaguna ka hadlay xiisadda taagan. warar kale oo ku saabsan ayaan eegi doonaa basaasin u dhashay dalkaasi Iran oo u shaqeynaya Israa'iil oo la soo qabtay isla markaana xogo dheeraad oo la helayo. barnaamijkan waxaan ku faaqidi doonaa dhammaan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee duulaanka Mareykanka uu doonayo inuu ku galo dalkaasi Iran. haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe saaro, sii share garee saaxiibadiina la wadaaga muuqaalka like ku dhiirigeliya. aanu ku bilownay sidaad la socoteen aqalka cad iyo Pentagon-kuba waxay ka fakarayaan in 10,000 oo askari ay u diraan bariga dhexe. sidoo kale ujeedadu waxay tahay in askar halkaa joogta lagu daro ilaa 15,000 ciidamo gaarayana howlgal dhanka lugta ay ku galaan gudaha dalkaasi Iran. 10 maalmood ayuu qabsaday sidaad la socoteen madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. waqtiga Mareykanku waa sii dhamaanaya. ujeedada waqtiga uu dalbanayana waxay tahay in uu helo marka waqti ku filan si diyaar garowgaasi logisti ahaan heerkiisa ugu fiicnaa u gaaro isla markaana weerarka uu bilaabo marka waqtiga uu dhamaado. laakiin Iran waxa soo dhan way ka baxsan tahay sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan. iyadoo sidaas ay tahay khasaare baan ayaa soo gaaraya dowladda Mareykanka. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan wargeysyada waaweyn New York Times iyo waliba Washington Post maalmihii la soo dhaafay ilaa 3 bilyan oo qalabka militariga khasaare ahaan inay ka soo gaartay dowladda Mareykanka haddii ay noqon lahaayeen waxyaalo soo gaartay saldhigyo iyo waliba xitaa marka nidaamyada difaaca tusaale Patriot nidaamka difaaca ee dalkaasi Urdun yaala Mareykanka gibiyahanba waa la burburiyay taasoo shaqadiisa gabay 300 oo milyan ayaa la tilmaamaya nidaamka kaliya isagu inuu joogo. wararkii ugu dambeeyay xaaladda dagaalku waxa la tilmaamaya hadda inuu wajahayo halistii ugu weyneed Mareykanka sababtoo ah xeelado cusub oo qarsoon ay la yimaadeen dowladda wadankaasi Iran. sarkaal u hadlay dowladda wadankaasi Iran gaar ahaan ciidamada ilaalada kacaanka waxa uu yiri Iran waxay wiilasheedu u diyaar garoobeen oo ay u tababarteen in ka badan hal scenario, yacni siyaabo kala duwan oo weerar ay u iman karaan ayaa wiilasheenu anaga diyaar u yihiin. 40 sano diyaar garowga kadib Iran ma ku guuleysan doontaa inay jilbaha u laabto dowladda Mareykanka mise waxa dhici doonta sidii dhacday Ciraaq iyo waliba wadamo kale oo bariga dhexe isla markaana hoggaankoodii la laalay waliba laga dhigay shacabkoodu kuwa baahay isku cunayaan kheyraadkooduna la iska daldalanayo. waqtigii waayo ayaa noo sheegaya qorshaha ciidamadan dhanka dhulka ee hadda la doonayo in la geeyo bariga dhexe ayaa waxa uu yahay in ay ku degtaan goobo muhiim ah sida jasiiradaha Qashum iyo waliba jasiiradda Kharg. ciidamada ama guutada 82 ee daladaha ku boodaya kuwa kale ee Marines-ka badda. xogii ugu dambeeyay waxay sheegayaan wali wada hadallada inay gacan kale ku wadaan dowladda Mareykanka. siyaasadeedu arrimaha gudaha wada hadallada waxaa hogaaminaya JD Vance madaxweyne ku-xigeenka sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. faahfaahinada la helayo waxay ku waramayaan wali doorkoodii Pakistan, Qatar iyo Egypt inay si weyn u ciyaarayaan. Iran waxay u aragtaa umuraha socda oo dhanba khiyaano markaa, laakiin xaaladda dhabta waxa leeyahay Mareykanka ma haysto gacanta uguma jirto inuu xakameeyo dagaalka. xitaa haddii yiraahdo maanta dagaalku waa ka baxaya Iran shuruudeeda in lagu joojiyo mooyaane waxa leeyahay ma muuqato shuruud cad oo Mareykanku hadda markaa uu ku joojin karo. umurihiina faraha way ka baxayaan waqtigoona uu ku sii soconaya markaa. Iran waxay sheegtay inay sidoo kale garaaci doonto goobaha tamarta, laakiin maanta waxaa dhacday dhacdo aan sahlanayn marka la eego. tusaale markaad aragtid dowladda Iran waxaa laga garaacay waxyaalo laga gaarsiiyay goobo muhiim ah oo kamid ah goobahooda tamarta. waxaa dhacday maanta in la duqeeyay warshado muhiim ah sida warshado soo saara ismintiga ama shamiindada. sidoo kale waxaa jira warshado kale oo kiimikada iyo waxyaabo kale oo muhiim ah dalkaasi kuwa kale cuntada iyo kackaca soo saara ayaa la arkay iyadoo la garaacayo sida dowladda Iran ay sheegtay. laakiin Israa'iiliyiintu waxay yiraahdeen goobaha aanu garaacnay waxay ahaayeen goobo kiimikada lagu sameeyay uraniumta lagu bacriminay, taasoo iska dhigan markaasi hadallo ku turkuteen ama been abuur oo kala ah sababtoo inta badan xaqiiqdu way ka fogiyeen warbaahinta Israa'iil marka laga hadlayo xogaha ay soo tabanayaan sida warbaahinta Israa'iil ay ku waramayso. tusaale markaad aragtay hay'adda tamarta ee Iran waxay sheegtay warshad kackaca jaalaha soo saara ee ku yaala Ardakan ee gobolka lagu magacaabo
Yazid ayaa weerar Israa'iil iyo Mareykanka markaa ka geysteen halkaas. Sidoo kale waxay tilmaameen in la duqeeyay goobo dad rayid ay ku sugnaayeen sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan. Faahfaahinadii ugu dambeeyay waxay sheegayaan sidoo kale goobahaasi gaar ahaan markaa warshad dhanka shamiitada samaysa oo ku taala Beeruzabad in markaa la duqeeyay oo 2 ruux oo shaqaalaha ay ku dhinteen halkaas sida xogtii ugu dambeysay ay sheegayso markaa. Israa'iil xogtaasi ma sheegayso, xog kale bay iyadu ku waramaysaa. Markaanu eegno dhanka Iiraaniyiintu iyaguna goordhaweyd waxay shaaciyeen nidaamyadooda difaaca in la shaqageliyay isla markaana Tehran iyagu hawada ay ka hortagayaan weeraro iyo waliba gantaalo ay soo tuurayaan Mareykanka iyo waliba Israa'iil. Markaad eegtid dhanka Israa'iil gudaheedu maanta iyaduna nagta laga gidiyay 9 gantaal ayaa ku dhacday gacanka Haifa sida xogtii ugu dambeeyay sheegayaan. Dabcan 9 gantaal waxa laga soo tuuray dalka Lebanon sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan. Laakiin Iiraaniyiintu labsadoodu waxay ahaayeen kuwa markaa geystay dhowr gantaal kuwa ku tuuray. Waliba waxay duqeeyeen sida la sheegay jasiiradda la yiraahdo Bubiyan, jasiiradaas oo la beegsaday markaa dhowr gantaalood iyo diyaarado aan duuliye lahayn sida xogtii ugu dambeysay Iiraaniyiintu iyagu ay shaaciyeen markaa. Wararka kale ee la helayo waxay tilmaamayaan ciidamada ilaalada kacaanka inay duqeeyeen magaalooyin Tel Aviv ay ka mid tahay iyo waliba meelo kale oo muhiim ah. Sidoo kale Israa'iil waxay sheegtay goordhaweyd inay duqeysay warshadii markaa biyaha culus ee Park ku taalay. Iiraan waxay garaacaysaa Israa'iilna waxay garaacaysaa goobaha muhiimka gaar ahaan goobaha tamarta haddii marba ay ku bilaabatay waxay ku tusinaysaa in ay adag tahay dagaalkan in la joojiyo isla markaana xaalku uu ka sii dari karo elbiriqsi kastana ay markaasi sare u sii socdaan xaaladda markaa. Xogaha la helayo waxay sidoo kale tilmaamayaan dowladda dalkaas Iiraan in ay qabatay basaasiin u shaqeynaya Israa'iil sida xogtii ugu dambeysay ku waramayso. Ciidamada sirdoonka ilaalada kacaanka ee dalkaas Iiraan waxay sheegeen inay burburiyeen kooxo la shaqeynaya nidaamka Israa'iil ee sirdoonkooda. Xogtan waxay tilmaamaysaa in lagu beegsaday goobo muhiim ah ayayna xogta gudbiyeen iyo shakhsiyaad ciidan oo loo haysto markaa dhimashadooda xitaa marka la eego. Waayo waqtiyadii ugu dambeeyay waxaa dhimanaya saraakiil waaweyn oo dalka Iiraan ah oo la dilayay oo Israa'iil ay toogatay marka. Hadda waxaa leeyahay aad baa loo qabqabanaya. Goordhaweyd channelka Israa'iil laga leeyahay 12aad wuxuu tilmaamay isagoo xiganaya mas'uul dhanka ammaanka Israa'iil Iiraan inay haysato tiro ku filan oo gantaalada ay ku soo tuuri karto marka. Iiraan waxay awoodaa in waqti dheer ay dagaalanto sida xogtii ugu dambeysay sheegayso. Warbaahinta aan ku soo gudbinayna waa tii Israa'iil ee mahatan Iiraan marka. Iiraan waxay sheegtay in waqti dheer diyaar u tahay dagaalamayso dadkeeda iyo shacabkeeduba ay difaaci doonaan. Bloomberg wuxuu ku waramayaa waqti xaadirkan gibi ahaanba in marinka Hormuz dhaqdhaqaaqi uu isagu taagan yahay maraakiib fara badan halkaas ay ku sugan yihiin marka la eego. 350 bay saaka xogtii aanu helnay ay ku waramayso marka ilaa hadda. laakiin la hada macada wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Hakan Fidan isaguna wuxuu markaa khadka telefoonka kula hadlay kan dalkaas Iran Abbas Araghchi Pakistan iyo waliba kan kale Masar waxaana laga wada hadlay sidii dagaalka loo dhameyn lahaa laakiin sida muuqata waxa leeyahay Mareykanku waxaan oo dhan wuxuu ka gol leeyahay sidii uu ugu qiyaani lahaa Iran waxay tiri mar idage Allah dago laa mar idagase aniga ayaa isdagay marka Iran waxay tiri lama aqbali karo talaabooyinkii ugu dambeeyay Abbas Araghchi xitaa wuxuu yiri 10 maalmood bay qabsadeen taasoo ku tusinaysa 10kii maalmood ay qabsadeen xitaa inay ka been sheegayaan yani wuxuu muujinayaa dadkan inaan la aamini karin marka soo yiri 10 maalmood ayaad qabsatay maxaad u duqeynaysaa goobaha tamarta marka macnaha waxay ka dhigan tahay inaadan lahayn ballan inaadan lahayn waayo Mareykanka hadda kadib dawladdu hadal la gashaa ayaa la weyn doonaa waxa dhacday dawladda waddankaasi Jarmalka ayaa hadlay oo ah dawlad xaq jira oo la safan marka la eego nidaamka hadda jooga markaas ma aha dawlad dimuqraadiya ninka hadda yimid marka nidaamka xaq jirka ee aadka aan u ogolayn ee xirxiran ee dimuqraadiyiinta siday u furfureen oo kale aan u furfurnayn ma waa nin aad u nacib marka la eego muhaajiriinta wax kasta oo nidaamka kale iyagu ay bidixda ay ogoshahay waa diideen iyagu marka wuxuu yiri Trump isagoo natiijo aan hayn ayuu hadda marka xiisadu kaga sii daraya taasoo ku tusinaysa xitaa kuwii la jiray wadamadii la sabnaa in maanta ay dhabar ka jeedinayaan Chidi Vance waxa leeyahay isagu website-ka lagu magacaabo Axios ayaa soo qoray goordhaweyd madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadda u diyaar garoobay inuu hogaamiyo wada hadallada taas oo Iran ay u aragto waxa socdaba qiyaano inay yihiin waliba goordhaweyd waa sheegay mas'uul u dhashay dalkaas Iran wuxuu yiri weeraradii ugu dambeeyay ee Mareykanku uu soo geystay isaga oo hadal ku baaqaya
waxaan la aqbali karin wakaaladda wararka ee Reuters uu siiyey waraysigaas waxaana isagu yiri marka umurtaas lama aqbali karo wuxuuna tilmaamay Tehran wili inaysan go'aamin markaasi sida ay marka uga jawaabi doonto marka weerarkaasi lagu beegsaday haddaba weerarka goobaha la beegsaday waan sugi doonaa waqti iyadoo ay jawaabaha ay bixisay marka goobaha ay kaga jawaabayso iyo sida ay marka uga jawaabi doonto waa la soo bandhigi doonaa bay leeyihiin Iiraaniyiintu marka dalkaasi Iiraan waxa hadda u diyaar garoobayaa sidii weerar waqti dheer uga hortagi lahaa wararka qaar waxay leeyihiin Iiraan hadda waxay ka fiirsanaysaa inay samaysto wax gumaadeen nuclear-ka marka warbaahinada qaarkood Israel iyo Mareykanka ayaa leeyihiin wayba isticmaali karaan oo Mareykanka Israel xaalka hadduu ku xumaado 10 maalmoodna askarta inta meesha la geeyo gam haddii laga soo siiyo jawaabta ku xigta Israel iyo Iiraan waxay sameynayaan hubka nuclear-ka inay isticmaalaan laakiin isticmaalkoodu waxa la miyaa loo istaagi doonaa uma istaagi doonaan dadkan qolyaha Iiraaniyiintu iyaguna waxa leeyahay diyaar garow bay ku jiraan oo way la socdaan miyay awoodi doonaan Iiraan inay ka takhalusaan Iiraanse isdifaaci doonta waqtiga noo sheegi doona ilaa hadda lugeedii bay ku taagan tahay si baan ayayna markaas ugu hortagaysaa gabadfalada iyo daandaansiga Mareykanka iyo waliba Israel ay ku hayaan Iiraan channelka subscribe saaro si share gare mahadsanid daawada